هاي وحول وحن كو قبصدي ها ما تقدقي سبا انت تسايس كوكو مرتو اها عاد انتد با hawshiisii buu sii qabsaday shaqo fiican buu helay bari inuu u soo kalluhu ugu tala galay miishaartiisii buu sii habaystay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو أجوكتان إيا سكستا أو آت نودا ونيسان كسو دوادا قصو آم فيلايو إن wax badan aad ka faa'iidi doontaan taasi oo ah mid xikmad badan xambaarsan oo aan rajaynayo in 10 aad ka baran doontaan qisadan waxa lagu magacaabaa nin caraysani dad wax ma taro naftiisana wax ma taro haddaba qisadan waxa inooga sheekaynaya oo barnaamijka marti inoogu ah waayo arag Soomaaliyeed Rooble Cilmi Boqore Rooble marka ku soo dhawow barnaamijka waan dhawahay waanan ku salaamay walaalkay Cabdirasaaq وهاجاك هدي أنا أوجد قلنا قصة أو أن رجينا يدد بدن إن أي 10 أي كبران دونان ويا أرجعني منا أي كفائد دونان نبلو qisadani waxay ku saabsan tahay nin farsamo yaqaana ama sida ay Soomaalidu u taqaan nijaar dadkan sameeya sariiraha ama kuraasta dabadeedna ninkani wuxuu lahaa meherad markaa waxa dhacay ninkani maalin maalmaha kamid ah ayuu wuxuu sameeyay waa laga rawaxaa meherada هديات hawshiisii buu sii qabsaday shaqo fiican buu helay bari inuu u soo kalluhu ugu tala galay miishaartiisii buu sii habaystay هديات si fiican buu u dhigtay markuu ninkii meheradii xidhay uu ka tagay habeennimadii ayaa waxa soo galay meheradii mas هيا maskii markaa miishaartii ها buu dul maray هيا markuu dul maray uu sidaa u dul socdo miishaartii baa maskii ويكويس way goysay maskii wuxuu yidhi هيا ruuxan ku qabsaday waa maxay أها dib buu u soo noqday هيا dabadeetana madaxuu ku dhufay yidhi mar labaad bay madaxii goysay مركا استدفاع بكودي أو مركا من شرطه أي دحدي حاجة وحير كسرتي وحو دمعي إنه أفكر لا هذا inuu afka la aado oo si waxan ku qabsaday ku iska celi adna iska celi ha haye dabadeed iska celidi maxay sababtay waa miishaartii haddana mar labaad ayaa madaxii ka sartay صح ha ka sartay ee maskii kamuu tagin haye wuxuu yidhi waxan ku qabsaday ha maad giddigiisaba intaad saa iskugu marto aha aad cuntid ba aad maskana waxa lagu yaqaanaa marka in badana uu wixii uu isku marmaro isku duubo ha isku duubo ha miishaartii isku duubay maski marka faa'iido kama helin miishaartii waa maski way googoysay marka haye marka ay miishaartu ay googoysay ninkii najaarka ahaa ama farsamo yaqaanka ahaa goormuu ogaaday markaa subaxnimadii subaxii buu yimiday ninkii oo faraxsan oo shaqa u taalo haye masmayda u yaala masmayda meesha u yaala haye oo miishaartii ay dhinac walba uga dhex goysay haye waxa weeyaan ninkii de sidii ku naxay ninkii meesha joogay miyuuna isweydiin maxaa ku dhacay dee qofka bili aadanka markay meesha cidma dhex joogin صح waxaan sameeyayna waa miishaar هاديات kamara duubaysayna ma jirin ninkii argagax bay ku noqotay مصدي اسكي كلي او غوغان oo ماشي يعني xalaal gu soo weydaartay xalay cidi timiday oo meesha loo soo dhacay ninkii xitaa tirakoob alaabtii u galay baa ya هي marka tusaale ahaan dabcan qisadan ku saabsan maskan isaga isdilay kale xikmad baa ka dambaysa marka dulucda sheekadani maxay tahay marka maxayna baraysaa dulucda sheekadani waxayna baraysaa Soomaali ahaan saan u badanna xaqiiq marka la yiraahdo qofku markuu cadhoodo wariska ma hayo صح marka qofku markuu cadhoodo naftiisu googoynaya cid waxba uma tarayo صح qofna waxba ma yeelayo hadda inagu badan xitaa tusaale ahaan haddaad social media eegto Facebook haddaad eegto YouTube haddaad eegto dad baa laga caayaya هاديات qofkan ku caayay kulama joogo waxba kuma sameyn kartid صح adiga waxa laga yaabaa inaad markaa naftaadii adisho sababta naftaada u dilayso waa maxay wad cadhaysan tahay qofku mar hadii dhiigiisu kaco ood cadhaysan tahay ma seexanaysa qof shaashada dhinaceeda kala jawaad u caroonaysa oo caroonaysa muxuu waxan kaaga sheegay waxan muxuu wadaa muxuu ujeedadiisu maxay tahay muxuu reebel u caayay muxuu anaga noo caayay muxuu siyaasiga u caayay qofkii markaa uu iscunaya habeenkii muu seexan ninkii haye marka laba habeen hurdo iska weyda maalintii saddexaad dhakhtarkii baa tagtay صح waxa tirinay xalay ma seexan ileen ma oranaysid hebel baan u cadhooday هاديات hurdaba waan iska waayay oo maxaa dhacay dani oo dhibka ma garanayo kiniin hurdaa lagu siiyay
kiniinkan hurdada qaado naso seexa lagu yidhi haye dee qof dhiiggiisii 100 taagan yahay oo cadhaysan oo qof cunaya oo gubanaya kini waxba uma taray aad iyo aad mar labaad buu dhakhtarkii tegey dhiikar baa laga helay qofkii haddana wariska ma hayo haye mar saddexaad baa haddana dhakhtarkii tegey haye maxaan baa laga helay waxaasoo dhan casabiyadii iyo xanaaqii iyo wixii baa keenaya oo uu isku kiciyey markaa waxaa la yidhaahdaa qisadan ciwaankeeda waa adigan arkaya waxa weeyaan qofka bini aadanka markuu xanaaqo cidna waxba uma qaban karo naftiisana waxba uma tarayo oo naftan dee ilaahay baa ku siiyey oo kugu ilaali waxa lagu yidhi ilaali waa lagaala xisaabtamaya naftii lagu yidhi in lagaala xisaabtama ahaydeed si fiican aad u ilaaliso baad gubtay aad iyo aad adoo taagan baad gidigaagiiba xanuunsanaysaa marka waxaad ku talin lahayd in qofka haddii lacala qofka aad u carooto inuu iska cafiyo qofkii run ahaanta marka xaqiiq la yidhaahdo bay'adda aynu ka dhalanay dad aggressive ah oo cadho badan balse haddaynu u bedeli lahayn oo dhaga kale ka eegi lahayn qofka waxaa lagu yidhi walaalkaaya haddaad u cadhootood ilaahay dartii ku cafiso waxaad helaysaa ajar aad iyo aad ajarka maxaa haddana kuusii dheer naftaadii baad badbaadisay sidee naftaada u badbaadisay waxaad u badbaadinaysaa maanta xanuunadan inta badan inagu badan intooda badan maxaa laga qaadaa dhiigkarka waa cadho waxaasoo dhan waa cadho cadhadii uqdad bay isku bedeshaa uqdadii markaa maxay noqonaysaa xanuun bay noqonaysaa qofkii markaa hadduu noqdo maanad arag markaad xaqiiqda eegto bulshada Soomaaliyeed qofba qofka uu ka qosol badan yahay uu ka faraxsan yahay waxaad moodaa inuu ka cimri dheer yahay waana sida xaqiiqada ah waa ta jirtaa maanta u fiirsan markaad bulshadeena eegto intooda badan waxaad moodaa inaynu cadhaysanahay cidaynu cadhaysanahay ma naqaano qofkan aad u cadhaysanta waa saad sheegayso anoo maanta Sweden jooga ayuu qof Soomaaliya ama aniga caayaya ama siyaasi aan taageersan oo jecelahay buu caayaya haye ama tolkay buu caayaya haye anigu halkan jooga marka waxyaabahan aad qofkan ugu caroonaysana waxaa laga yaabaa wax caafimaadkaaga iyo udan ah maba ahba eeg waxa lagu leeyahay xaqiiqda kuma oga haddii xataa haddii aad sariir foosho dadkan aad dartood aad u caroonayso ama qabiilkan aad inaad difaacdo aad ugu caroonayso waxba kuma oga laga yaabaa soma marka xaqiiqda la yiraahdo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa deriga ninna uu kariya ninna lafuhu kala baxaya uu cuna aad iyo aad kan caroonay waa groupka karinaya haye nin qoslayno iska cunaya hada u fiirso qofku markuu cadhaysan yahay ummad ma badbaadin karo naftiisana ma badbaadin karo marka intaas ku soo koobaysa adigu marka waxaan oran lahaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed saan qoslayno waad arkaysid aad iyo aad waxay noo ballan qosol baan noo ballan cadhaduna way naga xaraan aad baad u mahadsantahay aniga mudan waa hagaag daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waxaan rajaynayaa in wax badan aad ka kororsateen xikmadaasi oranaysa ama aan ugu magac daray nin caraysani naftiisana wax ma taro dad kalena wax ma taro inta aad qof u caroon lahayd Roble waxa uu leeyahay oo faraxsanaa oo qofkaasi iska cafi waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola socoteen fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channelka Bulqaas Media hanaga ilaawin inaad subscribe like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin sidoo kale in aad muuqaalkan aad share garayso si dad badan uu u gaaro ugana faa'iideystaan wixii tale iyo tusaale ah dhinaca comments-ka ayaad noogu soo qori kartaan aad ayaad u mahadsantihiin